kubaddaasi difaac xulka gobolka racs ee Zanaag ayaa kubaddaasi soo celiyey. kubaddaasi ayaa la isqaniin kabtanka xulka Daadmareed iyo markaa Xujo oo isaguna ah labada kabtan ayaa kubaddaasi isku ciriiriyey. waxaa loo dhigay kubad toosa ciyaartooyga ayaa la isqaniin oo ah mishiinka gobolka Daadmareed uga ciyaaraya dhexda ee baas qaybiyaha. laa toosa ayuu laada doonaa Khadiir. kubaddu waxaa u dhowdahay bartanka iyo diilinta 18 dhexdooda ay taalaa dhinaca bariga. laad saro halis ayuu soo laadi doonaa wardi lambar 12 wardi kubad sare ayuu laaday gool Daadmareed. kubad qurux badan ayuu ciyaartooyga wardi ka laaday duleedka diilinta 18 birta dhinaca bariga iyo halkaa iska galaa shabaga ayuu kubad khatara wardi ka kubaddaasi ma laadin Cristiano Ronaldo muu laadin Messi. ciyaartooyga wardi ayaa ka laaday Hargeysa Stadium kubad qurux badan. goolkii saddexaad ayay xaqiijiyeen xulka gobolka Daadmareed goobkoodii ka waday goolkii saddexaad ayay xaqiijiyeen. ciyaaraadu qurux badan ayuu ka mid ah ciyaarihii ugu diilinta bartanka iyo diilinta 18 dhexdooda ay taalaa dhinaca bariga. laad saro halis ayuu soo laadi doonaa wardi lambar 12 wardi kubad sare ayuu laaday ciyaartooyga Fieri ayaa garsoore sida walaha u soo sheegay Yuusuf inuu soo hagaajisto kabaha golofaska ka sareeya la gashado oo nidaamka ciyaarta uu soo saxo. kubad sare ayay soo laadeen gobolka ciyaartooyada gobolka Sanaag afkooda ciyaaraya Shigar iyo Xenjo Axmed Carab Xamse Saas Xasan Saas Xonjo ciyaartooyda Mizi gobolka Sanaag ayaa kubaddaasi daadahaynaya. kubadda lugta qof ciyaartooyga looma sahlayo kubadda kuleelkeeda inuu yarsi hayo. waxa ay labada weerarba doonayaan inay markaasi ciyaartooda ku soo bandhigaan weerar celis. ciyaartooyada afkooda uga ciyaaraya Sanaag Jigar Xanjo Mizi Hamza Siko Madoobe Fieri oo badal ku soo galay dhammaantoodba waxay soo qaadayaan weerar ay doonayaan gobolka Daadmareed inay kula bareejeen goolasha lagu leeyahay. laakiin ciyaartooyada afka hore ee gobolka Daadmareed Carabo Khadiir Hala wardi Xasan Saas ayaa cidhiidhi gelinaya difaaca gobolka Sanaag. ciyaartooyada gobolka Sanaag kubaddaas jiiday Xanjo Fieri Xanjo kubaddaasi dibadda ayuu baxday. laa toos ayuu soo laadan doonaa Hala. ciyaartooyadaasi Mizi ayaa kubaddu kula baxay ay dibadda uga baxday. ciyaartooyada Jigar Xanjo Mizi iyo Xamse Seekooba ciyaar wanaagsan ayay soo bandhigeen. ciyaar ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyay 10 cisho Hargeysa Stadium ay isku yirdiye 14 gobol ayaa maanta gobolkii 8 laga sugayaa labadan gobol ee Daadmareed iyo Sanaag. ciyaartooyga wardi Hala Cabaashta ka ciyaaraya Khadiir ciyaartooyga Xasan Saas gool Xasan Saas kubad qurux badan isku soo dhigay khilaa Hala Khadiir iyo Xasan Saas buu ku xaqiijiyay. Xasan Saas goolkii afaraad ee xulka Daadmareed ay keensadaan. yaa salaam ciyaartooyada afka hore uga ciyaaraya xulka gobolka Daadmareed maanta ciyaar qurux badan ay Hargeysa Stadium ku soo bandhigeen. Hargeysa Stadium xulka gobolka Daadmareed ciyaartooyada afka hore Khadiir Hala Carabo بدل ayuu samayn doonaa tababara Diridhaba. ciyaartooyga Khadiir ayuu soo bedelay. waxaa soo galay ciyaartooyga Sharmaake ayaa bedel ku soo galay. bedel ayuu sameeyey. yaa salaam kubad qurux badan oo isku soo dhigeen Hala baasha bidixda ee garoonka Hargeysa Stadium ayaa Khadiir u soo dhigay. Khadiirna kubaddaasi waxaa si toos ugu hubsaday Xasan Saas oo baasha midig ka soo galay.
ciyaarta 4 gool iyo waxay diilinta bartanka iyo diilinta 18 dhexdooda ay taala dhinaca bariga laadsaro alis ayuu soo laadi doonaa wardi lambar 12 wardi kubad sare ayuu laaday wardi gool iyaguna u soo bandhigaya kulankii u dambeeyey 10 cisho ee xulka gobolka u bixi doona 8 dhammaadka kubadda koobka jamhuuriyadda somalilan ee 8aad ayaa maanta halkan lagu wada ciyaaraya dhinaca bariga diilinta 8aad ee gobolka daadmareedh ayaa kubad laada uu soo tuuran doonaa ciyaartooyga xanjo ee kabtanka xulka gobolka sanaag kubad sare ayuu laadi doonaa bedel ayaa la samayn doonaa bedelkiisii gudnimada gobolka sanaag samayn doona ciyaartooyga wisti waxa uu bedelay ciyaartooyga madoobe lambar 8 waxaa soo geli doona ciyaartooyga xamse ciyaartooyga madoobe ayaa la bedelay waxaa soo galay shulac ciyaartooyga xamse shulac ayaa bedel ku soo galay ciyaarta laa toosoo sare ayuu laaday gool wada xulka gobolka hiiro ayaa badbaadiyey ma dhalan kubad aad u qurux badan ayuu dhinaca bariga ka soo laaday ciyaartooyga xanjo ee qalbiga gobolka sanaag kubad tuurasho dhinaca galbeedka koornaha baas ayay soo ciyaareen ciyaartooyada kubad sare ayay soo laadeen gobolka sanaag ayaa kubad khatara ku laaday ciyaartooyada gobolka sanaag afka hore uga ciyaaraya ee xamse siko miisi xamse shulac oo bedel ku soo galay xansho iyo jigar weerar ayay doonayaan in ay xaafka dambe ciyaarta wax kaga bedelaan 4 gool ee lagu leeyahay ciyaarta haafkii dambe tababarayaasha ayaa si toosa uga daawanaysa Hargeysa Stadium koobkii 8aad ee jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland oo 13 gobol oo 14 gobol oo ka soo qayb galay tartankan ay maanta 8 u dambeeyay oo kala baxayaan gobolada kaalinta 8aad u dambeysay oo kala baxayaan Daadmar iyo Sanaag kubaddu dhexda ciyaarta ayay socotaa ciyaartooyga xasan saas daadmareed xasan saas ayaa kubadda maamulaya xasan saas weeraryahanada xulka gobolka sanaag ee xanjo iyo jigar ayaa markaasi weerar halisa geliyey kubaddaasi daasha midigeeda kala soo galeen miisi kubad sare ayuu soo laaday laakiin waa baxday ciyaartooyga miisi ayaa kubad sare oo dhinaca bariga ka soo laaday ciyaartooyada mishiinka gobolka sanaag ee miisi xasan saas xamse shulac jigar iyo xanjo waxay doonayaan weerar ay ciyaarta wax kaga bedelaan inay soo qaadaan ciyaartooyada difaaca gobolka daadmareed jamaal axmed gabyaaye daa'uud iyo cawil ayaa iyaguna sida birta doonaya inay guusha haystaan xajistaan oo ay ciyaartooyadaasi u saamixin inay daqiiqadahaasi 90ka dambe ee ciwadda la ciyaarayo ay sidaasi 90 u gaarsiiyaan jaamac ciyaartooyga xulka gobolka sanaag difaaca uu jooga cabdi fataax bilaal iyo raas ayaa kubaddaasi soo celinaya gacan tuurasho toosa ayay tuuran doonaan kubad gacana xasan saas laad sare kubad toosa ayay kula baxayaan ciyaartooyga meesi iyo difaaca xolka gobyaaye waa dhex adag guuleed gobyaaye maxamed gabyaaye oo ciyaartooy gabyaaye maanta ciyaartiisa una dhexda ka ciyaaraya jamaal axmed ayaa gacan tuurasho toosa soo tuuri doona gobolka daadmareer jamaal axmed kubad gacan tuurasho toosa ayuu soo tuuri doonaa shula ayuu soo tuuray dib ayaa kubaddaasi gacan tuurashada lagu celinaya xeerka gacan tuurashada ayaa garsooda markaasi qaabka loo tuurayo in wax laga bedelo iyada laftirkeeda macluumaad iyo aqoon bay leedahay inaad gacan tuurasho samaysaa ciyaartooyda gobolka sanaag kubad toosa ayay laadan doonaan xulka gobolka sanaag qalab lagu galay ciyaartooyga fiera ku soo galay xasan saas laad sare kubad toosa ayay kula baxayaan ciyaartooyga meesi iyo difaaca xolka gobyaaye waa dhex adag guuleed gobyaaye maxamed gobyaaye
وعيارتي قبيا ما أنت عيارتي سونا دحذا كعياري أيها كبدأ سيميال بنان كقبصدين قول أي هيرو قول قبل قداد مريد وعيارتي خبرات فضلوا لنا قول قبل الشرع يمرقى سعر فدي دبا كبدأ قبل قداد مريد أيال الصغنين عربو حسن ساس دفاع قبل قداد مريد بلال بقبل شيديا فييرا ديبيرو حمزة سيكو في حمزة شلع كبداسي أوبسايد مهر مدع يسميين أو عيارتيغا يي لنع هر مدع هر زميين كبتو ساي سولا دونا عيارتيغا جمال أحمد شرماكي جمال أحمد كبدا سباشا من تكتي هلا عودنا عبد حدا جرونكا عولو تويا كبدا سي waxay ku baxday ciyaartooyada gobolka Daadmareed عبد فهد ayaa kubad soo tuur doona gacan tuurasha راس gobolka Sanaag راس ciyaartooyada gobolka Sanaag ayaa kubada soo daadeeyay lamartiga ayuu soo xancho difaaciya kubadaasi soo celiyay daawud ayaa kubadaasi soo celiyay difaaca gobolka hal caba kubadaasi ayaa isku haystay difaac xancho ayaa kubadaasi jiiday lambar 2 cawil difaaca gobolka Daadmareed ciyaartooyada gobolka Sanaag difaaca gobolka Daadmareed daawud وردي هلا عبد فهد بقوا بدأ زيك السؤالين في راس ميزي فيرا جول هاي هيرو عياكم بدأ سيقبتي عيارتي قبل كزناق waxay doonayaan inay ciyaartaasi ku muujiyaan goolasha lagu leeyahay iska soo badaan ciyaar wanaagsan ayay keeneen gobolka Awiyaasha Sanaag laakiin ilaa hadda 4 gool ayaa la marinayaa natiijada ciyaarta 9 ayay doonayaan dadaal fiican inay sameeyaan Fahad baashimida ay soo dhigay kubad ciyaartooyada afkoora uga ciyaaraya difaaca uu jooga Cawil iyo Daawud ay kubadaasi dibadda u saaray gacan tuurasho toos ah ay soo tuuran doonaan tuush ama gacan tuurasho ciyaartooyda gobolka Sanaag فهد حانشو دفاع gobolka Daadmareed kubadaasi dibadda ayuu baxday kubadaasi madax ayay soo laadan doonaan xulka gobolka Sanaag dhinaca bari ee goolka Hargeysa Stadium waa lagu soo laadan doonaa goolka Daadmareed dhinaca koonfurta kubadda koonu waa halis madax ayay doonayaan ku dhaliyaan ciyaartooyda فييرا ayaa kubad sare soo laaday فييرا جول Sanaag goolkaasi Xamza Siko inanka qalbiga kubad sare oo si qurux badan Fiyoore uga soo laaday dhinaca koonaha koonfurta ee Hargeysa Stadium ayaa uu ku hubsaday Xamza Siko gool Sanaag goolkoodii ka wadayay xulka gobolka Sanaag markaasi oo ay keeneen ciyaartu waxay maraysaa 1 iyo 4 ciyaartooyada gobolka Sanaag 1 gool ayay leeyihiin Daadmareed 4 ayay leeyihiin ciyaartooyada gobolka Sanaag waxay codsanayaan in cidhiidhi lagu sameeyo difaaca iyo goolwadaha laakiin Xamza Siko goolka ka wadaya uu saxay weer halis oo ay soo qaadeen ciyaartooyada gobolka Awiyaasha Sanaag Shigar Xancho Xamza Shula Xamza Siko goolka dhaliyay Miisiba weer halis ayay soo qaadeen gool Sanaag 4 Daadmareed ciyaartu waxay maraysaa 4 iyo 1 Hargeysa Stadium ayaad kala socotaan ciyaarta waa ka ciyaartooyga xulka gobolka Daadmareed ee Gabyaaye oo xiriir kubadaasi lagu gool Sanaag goolkaasi Xamza Siko inanka qalbiga kubad sare oo si qurux badan Fiyoore uga soo laaday dhinaca
koonaha koonfurta ee hargeysa stadium ayaa hargeysa stadium ayaa martigelisay 14 gobol ayaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa koobka 28kii bishii hore Oktoobar tagtay si rasmi ah uga furay hargeysa stadium maalintiisii tobnaad ayuu galay ayaa kubad sare soo laaday Fiera gool sare gool Jamaal Axmed داود عاول وردي ayaa kubadaasi qaad laga galay wardi la toosayay laadan doonaan goolka Daadmare Xamse Shurac ayaa qalad ka galay wardi oo markaasi u ciyaaraya xulka gobolka Daadmare la toosayay diilinta dhinaca goolka Daadmare ka laadan doonaan kubad sare ayaa la isqaniin kubad sare ayuu laaday difaaca gobolka waxa soo celiyay Sanaag Bilaal ayaa madax kubadaasi ku soo celiyay Messi kubadaasi dib Messi ayaa qalad lagu galay la riixay dhaxda ayuu ka laadan doonaa diilinta bartanka Hamza Siko inaga goolka u siiyay xulka gobolka Sanaag Hamza Siko baas ayuu siiyay Fiera Hamza Shulac weeraraya kula soo baxeen marka Axmed Carabo kubadaasi dib Carabo kubadaasi waxa weerar markuu wada qaaday Carabo Khadiir bedel ku baxay markaas oo soo bedeleen Tony waxa soo bedelay ciyaartoyga Sharmaake halacba isna weerarka wali sidoo taagan ciyaartoyga Sharmaake bedel ay ku soo galay Khadiir ay soo bedeleen kubadaasi waxa jiiday Jigar difaaca gobolka Daadmare ayaa soo celiyay Xasan Saas wardi Daadmare wardi kubadda soo laaday Axmed Carabo difaaca gobolka Sanaag raas ayaa kubadda soo diiday Carabo inuu markaas la shado tarabuunka ayaa wali qaylinaya kaafkii dambe ciyaarta ayaynu ku guda jirnaa oo Hargeysa stadium idinka imanaya ciyaarta gobolka Daadmare 4 gool ayuu ku hogaaminaya Sanaagna 1 gool ayuu leeyahay Xasan Saas wardi gobolka Daadmare gool wada Siyaaro ayaa kubaddu wardi ka soo laaday diilinta bartanka oo kubad toos aad u qurux badnayd uu Siyaaro kubaddaasi badbaadiyay gool wada Siyaaro kubaddaasi koorna la toos ayay soo laadan doonaan gobolka Daadmare waxa uu soo laadi doonaa ciyaartoyga baasha waa ciyaaraya Cawil lambar 2 kubaddaasi waa halis madax ayay la boobi doonaa kubaddaasi dibadda ay baxday ciyaartoyga Jamaal Axmed Xasan Saas iyo difaaca xulka gobolka Raas ee Sanaag ayaa isku haysta Raas iyo Sanaag Goobyaye ayaa bedel lagu samayn doonaa بدل يلا سمين دونا ciyaartoyga Suldaan ayaa soo gali doona ciyaartoyga Goobyaye oo kubad ciriiriya dhaawac ka soo gaaray ayaa la soo bedeli doona dabara diirina bedel ayuu sameeyay difaaca ayuu xoojiyay lambar 5 Suldaan ayuu soo galiyay difaaca natiijada ciyaaraha waxa uu door bidayaa dabara diirina inay sidaas kaga dhamaato maadaama ciyaartu oo ilaa imika lugta hore 4 gool ku hogaaminayo Goobyaye ayaa dibadda soo bixi doona marka lugta midigta uu dhaawac ka soo gaaray goolkii ugu dambeeyay Hamza Siko oo xulkooda ka dhaliyay madax kubadna soo laaday Goobyaye ayaa ciyaarta dibadda uga soo baxay qalbiga difaaca Goobyaye lugta ayaa dhaawac ka soo gaaray waxa markaasi bedel ku soo galay ciyaartoyga Suldaan kubadda gobolka Sanaag ayaa weerar kula soo baxay ciyaartoyga Hamza Siko ayaa dhexda ciyaartaasi ka daadinay waxa uu dhigay Fahad oo baalka ciyaaraya ciyaartoyga guulada kubaddaasi Daadmare kula soo baxay waxa isku yeeray Fahad iyo markaasi Cawil iyo Fahad kubaddaasi Fahad ayaa dhaafay Cawil ayaa kubaddaasi la dhaafay Cawil kubad sare ayuu soo laaday gool wada xulka Siyaaro ayaa kubaddaasi ku soo baxay kubaddu waa ay baxday
koorne ama laatoosa oo garabka midiga iyo wardi soo laadi doona. wardi ayaa soo laadi doona. kubadda koornarku waa khatar weeye. madaxa ayay ciyaartooyada dhammaantood kula boobayaan oo markaasi ay doonayaan inay madax kaga dhashadaan gobolka daadmareed. xagga ciyaartooyada difaaca gobolka sanaagna ay doonayaan. kubad sarax ayaa soo laaday difaaca gobolka sanaag. fiyaara ee dhexda ka ciyaaraya ay kubaddaasi madax ku soo celiyeen. ciyaarta labada xulba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u adag oo farshaxanimo ku dhex. xasan saas suldaanoo beddel ku soo galay. cawilo baasha midigta ka ciyaaraya lambar 2 weer ilaa difaac iyo xamse ciyaaraya gobolka daadmareed. ciyaartooyga fahad vaado isaguna baasha midigta ka ciyaaraya. jigar ayaa kubaddaasi kula soo wareysanaag. jigar suldaan baa kubaddaasi ka soo celiyey oo laad ku soo difaaca gobolka daadmareeda. wardi ayaa kubaddaasi jiidaya. halac oo afka hore ka ciyaaraya daadmareeda. adag kubaddaasi difaaca xulka gobolka sanaag ayaa soo celiyey. xamse shulac kubaddaasi obside ayay galeen. obside ama hormadhac ayay sameeyeen oo inta loogu talagalay difaaca haddaad weerarka xagga dambe ka martid. miisi iyo markaasi fiyara ayaa obside ama hormadhac ciyaartaasi sii galay. sidaas ayaa siidha wale yuusuf oo khibrad badan siidhiga wale ugu socday. laa toosa ayay laadan doonaan ciyaartooyada xulka gobolka daadmareed. kubaddaasi dibadda ayaa loo saari doonaa. kubad toosa ayay soo laadan doonaan ciyaartooyada gobolka daadmareed oo ilaa hadda ciyaarta dhexe hargeysa stadium ku maamulaya. 4 gool inay ku horeeyaan. hargeysa stadium isaragii u dambeeyey ayaa lagu ciyaaraya 14 gobol. 8 gobol ayaa iska xaadirin doona koobka. dibiro kubadda ku lahay. dibiro gobolka sanaag. dibiro ciyaartooy aad u khibrad badan beddel ku soo gala gobolka sanaag. difaaca gobolka daadmareed ee kubaddaasi soo celiyey. xasan saas halac iyo markaasi xanjo ayaa kubaddaasi isku haya. garab ayuu ciyaartooyga lambartanka u xidhanay. xanjo kubaddaasi uu diiday inuu halac kula baxo. xanjo waa ciyaartooyga lambartanka uga ciyaaraya kabtanka xulka daadmareed xulka sanaag. dibir ayaa kubaddaasi jiidaya. jigar ayaa kubaddaasi kula baxay. kubaddaasi mar labaad ayay diilinta hormadhac sameeyeen oo ay hore u galeen. ciyaartooyda gobolka sanaag oo weerarka xoojinaya. obside fara badan ayaa lagu qabtay ama hormadhac. maxamed carabo difaaca xulka bras gobolka sanaag. kubad sare ayay soo celiyeen. ciyaartooyga daawud ee gobolka hawd ayaa kubad sare soo laaday. daadmareed ciyaartooyga gobolka daadmareed. dibiro difaac iyo weerar. ciyaartooyga miisi ayaa difaaca xulka gobolka cawil u diiday kubaddaasi inuu kula baxo. gobolada daadmareed iyo markaasi sanaag ay ciyaarta dhex maraysaa. gobolka sanaag koona ayay soo laadan doonaan. koonaha madaxa halis ayay sanaag ku yihiin markaasi. koona labadii dhinaca midig ka soo laadi doonaan ciyaartooyada weerarka gobolka sanaag. fiyara ayaa kubaddaasi soo laadi doona. goolkii hore koorna soo sallaxay. fiyara kubad sare ayuu laaday. kubad sare madax labaad ayaa sigtay. ma dhalan xamse siiko madax labaad ayuu kubaddaasi la helay oo dhinaca bariga goolka u mariyey. xamse siiko madax halis ayuu ku yahay. raas ciyaartooyga halac ciyaartooyga jigar. halac baa kubad jiidaya. halac ciyaartooyga dibiro ayaa kubaddaasi soo celiyey. dibiro ayaa kubadda maamulaya weli. saaxiibka ayuu u dhigay xanjo jigar. fahad ololay gool miisi goolkii labada iyo gobolka sanaa keeneen. kubad uu kula baxay miisi iyo shigar ayay obside moodeen.
ciyaartooyda difaaca gobolka daadmareed laakiin offside maahan kubad xibraysan kala baxay gool sanaag saaxiibka ayuu u dhigay xanjo jigar fahad allalaay gool miisi goolkii labada iyo gobolka sanaa keeneen kubaduu kula baxay miisi iyo sanaa goolkooda labaad ayuu xaqiijiyeen labada gool waxaa kala dhaniyey xamse siiko iyo miisi oo weerar uga ciyaaraya 2 iyo 4 ayay ciyaartu maraysa bedel ayuu dirdhaba samayn doonaa ciyaartooyga dibiro bedel ayuu ku soo galay ciyaarta badan ayuu ka bedelay siiko fahad jigal fiera baasha midige goolka fiera sanaag difaaca gobolka sanaag iyo daadmin ayaa kubadda soo celiya xasan saas ayaa kubaddaa sii diiday socdaan cawil ayaa kubaddaa soo jiidaya ciyaartooyga halac baasha zamanka halac inaan aad u dheerayna baasha samanka halac difaaca xulka gobolka sanaag ayaa diiday halac inay dhaafaan siyaara ayaa kubaddaasi haysta ciyaartooyga bilaal oo difaaca gobolka ayaa markaasi diiday in kubaddaasi uu halac dhaafo halac baal khatara ayuu ka ciyaaraya sanaag kubad sare zanaag ciyaartooyga daadman halac ayaa kubad kula soo baxay khadiir halac kubad sare kubad baashaasi kala soo laakiin difaaca gobolka sanaag ayaa kubaddaasi soo celiyey xamse siiko shulac jigar iyo difaaca jigar weerar ayaa lagu soo qaaday laakiin ninka shantee suldaan la bedelay goobya ayay bedelay koone kale ayay soo laadan doonaan fiera oo maanta koonayaasha badan soo laadaya bedel ayay samayn doonaan ciyaartooyga lambar 11 ayaa la bedeli doonaa ciyaartooyga lambar 7 ayaa la bedeli doonaa markaas halac oo yarnaasi ka ciyaari waxaa soo geli doona indo ciyaartooy lambar 7 lambar 11 diridhaba bedelkiisa ayuu soo samaynaya waxaa doonaya inuu weerarka sii xoojiyo ciyaarta xagga dambe ayay ka kululaatay weerarka xoojin doona laad sare ayuu soo laaday fiera madax ayaa lagu sula boobaya kubaddaasi mar labaad ayay madax kaga saareen ciyaartooyada jamaal axmed oo ay kaga horeeyeen madaxa kubaddaasi fiera kubad kale madax mar labaad gobolka sanaag fiera madax labaad ee dhinaca bariga ee goolka gobolka daadmeel ku soo laadi doona koonaha dhinaca bariga madax kale aa lagula boobaya kubaddaasina difaaca gobolka daadmeel ayaa soo jiidanaya jamaal axmed xasan saas iyo jamaal axmed ayaa kubad wanaagsan wada ciyaaray ciyaartooyada indhoo bedel ku soo galay iyo ciyaartooyga gobolka sanaag miisi ayaa markaasi ayaa la isqaniin kubad sare ayuu laadi doonaa anaaqad loo galay markaasi xasan saas wardi kubad khatara ayuu soo laaday laakiin gool haye siyaara ayaa kubaddaasi badbaadiyey wardi baasha midigta garoonka ayuu ka ciyaaraya ciyaartooyada gobolka sanaag xamse siiko ayaa la isqaniin kabtanka xulka daadmaneed suldaan xasan saas